السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal waa mar kaliya muuqaal cusub. waxaan ku soo qaadan doonaa maanta muuqaalkeena qiso dhacday. gabadhu ma aysan ahayn muslimad, waxa ay ka tagtay wadamada gaalada, waxayna u safartay wadan ka mid ah wadamada muslimiinta. waxaa safarka ku weynay aabaheed oo gaal ahaa. maalin maalmaha ka mid ah iyada iyo aabaheed iyo saaxiibkii ayaa waxay dhex marayeen magaalada. gabadhii waxa ay maqashay quraanka dhex baxay tukaan. waxay ku tirid aabaheed, aaba muxuu yahay fanaanka codka macaan ee xamaystaha ah ee halkaa ka baxaya? aabaheed saaxiibkii ayaa wuxuu dhahay, ma ahan fanaan, se waa quraanka kariimka. quraankaasoo lagu soo dejiyay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, quraankaas oo dadka u ah hanuun iyo raxmad. gabadhii waxa ay jeclaatay in ay sii dhageysato iyadoo dhegta u raarnacaynaysa, si wanaagsan u xiisaynaysa inay dhegahaygu soo gaaraan dhawaqa quraanka ee baxaya. waxay aabaheed ka codsatay muddada safarka ay waddankan ku joogaan in uu kordhiyo, iyada oo markaa xiisaynaysay in ay wax badan ka sii ogaato codka ay maqashay ee aabaheed saaxiibkeed uu ku tilmaamay quraan kariimka oo xagga Rabbi ka yimaaday. aabaheed waa ku ogolaaday 3 bilood ayay ku nagaadeen magaaladii ay joogeen. waxay tirid, waxaan u baahanahay in aan quraanka kariimka wax badan ka ogaado. aabaheed saaxiibkii ayaa ku farxay, wuxuu dhahay, dhib ma lahan, aniga ayaa ku baraya. macluumaad fara badan aniga ka siinaya quraanka kariimka iyo Rabbiga soo dejiyay. gabadhii magaaladii ayay joogtay 3 bilood. waxa ay baratay asxaab fara badan oo muslimiina, waxa ayna baratay quraanka kariimka waxyaabo badan oo kamid ah. aad ayay u jeclaatay diinta islaamka, iyadoo aad ula dhacday dhaqanka muslimiinta iyo walaaltinimada dhexdooda ka muuqata, sida ay isku xitaamayaan iyo sida ay kooga yar iyo kooga weyn iskugu naxariisanayaan. gabadhii waxa ay bilowday in ay quraanka kariimka ahaa kolbina ay u rogto, iyadoo aayaadka quraanka ku tadabburaysa, iyadoo qisooyinka quraanka lagu soo wariyay aad ugu firfirsanaysa, midba kale ay xiise gelinayso. aabaheed saaxiibkii wax badan ayuu ka baray diinta islaamka. waxa uu lahaa awlaad. gabadhii waxa ay jeclaatay in ay soo gasho diinta islaamka, iyada oo markaa ku dhawaaqtay shahaadada, iyada oo markaa aad u xiisaynaysa in ay soo gasho diintan quruxda badan. waxa ay tirid, weli maan arag diinta islaamka diinka macaan oo adduunka taala. gabadhii waxa ay jeclaatay aabaheed saaxiibkii wiil uu dhalay, isla markaana waa ay guursatay. waxa ay baratay gabadh daaciyada oo muslimada, gabadhaas oo mar walba ay ka soo faa'iideysan jirtay, iyada oo kala doodaysa diinta islaamka iyo waxyaabo fara badan. gabadhaasina aad ayay uga dhaadhicinaysay diinta macaankeega. gabadhii waxay tiri, waxa aan la yaabay sifaadka Rabbi uu leeyahay, iyada oo markaa ku celcelinaysay suuratul ikhlaas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. mar walba suuradaas ayay akhrinaysay iyada oo aad u faraxsan oo qoslaysa. waxa ay la yaabtay sifaadka wanaagsan oo quraanku ka bixinayo Rabbi. gabadhii waxa ay joogtay wadankiiba, waxay dhashay 2 caruur ah, iyada oo ku barbaarisay diinta islaamka iyo quraanka kariimka ah. ayaa maalmaha ka mid ah aqalka dhex fadhida, isla markaana qoslaysa, ayaa waxa ku soo baxay ninkeedii. waxa uu ku dhahay, maxaad ku qoslaysaa oo ka fikiraysaa? waxa ay tiri, waxa aan aad ula yaabay oo ku faraxsanahay aayadda quraanka ah ee sheegaysa, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. waxaan aad ugu faraxsanahay ilaahay wax la mid ah inuusan jirin, wax loo dhiga xitaa uuna jirin, wax lagu tusaaleeyo xitaa uusan jirin. ninkeedii ayaa waxa uu ku dhahay, ma taqaanaa waxa ugu weyn ay muslimiintu helaan? waxay uga sheekaysay jannada. waxay tirid, jannooyinka ilaahay wuu fara badan yihiin. waxay muslimiintu heli doonaan marka ay dhintaan jannooyin aad u barwaaqaysan oo qurux badan. ninkeegu wuxuu ku lahaa markasta maya, jawaabta ma haysid. waxay uga sheekaysaa webiyada jannada dhex maraya, waxay uga sheekaysaa jannada iyo naciimka dhex yaala, markasta wuxuu ku dhahaa maya. waxay ku tirid, ma ii sheegi kartaa wax intaa dhaafsan oo muslimiintu helayaan?
waxa uu ku dhahay ninkeedii waxa ugu weyn ee muslimiintu heli doonaan waxa weeye in ilaahay ay arki doonaan. aad ayay ula yaabtay, hadalkaasina qalbigeeda ayuu taabtay. waxa ay bilowday in ay ooydo iyadoo markaa aad u xiisaynaysa hadalka uu ninkeedu ku dhawaaqay. waxa ay u tagtay gabadhii daaciyadda ahayd ee ku xidhnayd, waxa ayna weydiisay su'aashii. waxa ayna ku tirid ilaahay ma arki doonaan maalinta qiyaamo muslimiintu? se maxaa ka jira warkaa in jannada dhexdeeda rabbi lagu arki doono? gabadhi waxay ku tirid waa sax arrintaasi, ilaahay muslimiinta wejigiisa wuu tusi doonaa. aad ayay u faraxday gabadhi, waxayna tirid anigu rabbi waan jecelahay. qisadeena halkaa ayaan ku daynaynaa.